iskaashatada gaadiidleyda iskarogooyinka Dallis magaalada Garowe ayaa maanta shaqo joojin sameeyay iyagoo shaqo joojintooda u sababeeyay in dawladda hoose degmada Garowe ku soo rogtay canshuuro fara badan. Guddiga gaadiidleyda Dallis oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen inaysan shaqada dib u bilaabi doonin haddii aysan dawladda hoose wax ka bedelin arrinta hadda ay bilowday. Waxaan ka cabanaynaa annagoo ah iskaashatada iskarogooyinka ee Dallis ee degmada Garowe dawladda hoose oo nuu kordhisay qiimo aan qaadi karin oo ah lacag shabad ay tiri wax lagu dhajiyo baabuurta oo ayaan ogeyn dawladdii iyo golihii deegaanka oo ka mid ahaa konsolka intiisa kale uusan ogeyn oo arrimaha gudaha uusan ogeyn wasaaraddii wax la og ayaan jirin guddoomiyaha iyo ay wataan iyo toddoba guddiga fulinta ah haddii aanu niri naga qanciyana aan wax qaaca ka weynay sidaa darteed waxaanu ka cabanaynaa in ay arkaan ummadda islaamka ah oo mataqaanaa deegaanku ay nala arkaan cabashadayada annagoo ah dadkii xoogsatada ahaa oo ka shaqaynayay dhismaha magaalada waxaa meeshaas taagan waa aragtaan waa raggii baabuurta waday shaqaalihii kuma jiro waa baabuurta darawalinteedii shaqaalihii waa hawlo mataqaanaa kala dartood bay mataqaanaa uga maqan yihiin intaas oo darawaliin ah iyo gaari kasta oo 5 nin 6 nin ku qoran tahay iyo inta ka dambaysa bulshadii oo dhan baa mataqaanaa wuxuu shaqaynaya weeye sidaa darteed waxa la yiri $24 oo ah cashuur iyo shabad iyo lowr iyo dabaxir deegaan aan ka shaqaynana ma hayno lowr kastana waxa la yiri $2 weeye dadka loo geenaya qayb laga qaadaya qayb shaqaalaha laga qaadaya baabuurkana qayb baa laga qaadaya sidaa darteed ma awoodno annagu baan niri baabuurti qayb baa xirxiran oo wax ku jidha isbartibada ay ku xirteen intii kalena waa taa inna waa cardho waa la xabadayo meelahaas bay kala jidhaaba waxaan ka caawinaynaa inta ay khusayso cabashadaas si degdeg ah inay uga soo jawaabaan sida golaha deegaanka oo wasaaradaha amniga deegaanka maaliyadda inta ay khusayso ilaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sidaa darteed waxaan leenahay wax arbusha iyo wax rabsha midna ma wadna annagu baabuurta halkaasaanu keennay si amni annaga amniga ilaashanayna ciidan mataqaanaa ma u yeeran mana rabno inaanu magaalada fawdooyno wadooyin xirno mudaaharaad samayno waa cabasho ku saabsan shaqadayada iyo inta ay khusayso oo ah deegaanka dhulkii aan ka shaqayn lahayn meel walba waa la xirtay sirig baa lagu xirtay wadda aan marna ma hayno meel aan ciid ka gurro ma hayno buurihii kulli cagaf baa lagu wareejiyey waxaa la yidhi ka gurmaysaan anaa le waa laga iibsaday marka haddii ay dhacdo ifan in aanu shabadda yeelno intaan shabaddu ku dhicin waa in meeshaan ka shaqayn lahayn nala geeyaa naloo asteeyaa shaqo madax bannaan aanu helnaa annana markaas waa mataqaanaa waa ogolaanayna wixii xaqna loo ku leeyahay salaan kadib annagu meeshaan waxaanu u nimi cabasho iyo waxa aanu qaadi weynay oo nala ku keenay waxa aanu qaadan weynay oo nala ku keenay waxa ka mid ah waxa aanu qaadan weynay oo nala ku keenay annagu waxaanu bixinaa cashuur waxaanu bixinaa shati waxaanu bixinaa waddo waxaanu bixinaa horumarin degmo waxaanu bixinaa maaliyad waxaanu bixinaa istiigar waxaanu bixinaa mid ciidan oo tukaraqa waxaanu bixinaa wadda ceel daahira intaasaa nala ka qaada aanu bixinaa annagoo intaa bixinna dhibaatadii dhulka soo madhay oo aad og tihiin soomaaliya markii ay kala go'day oo buundada midgareed go'day waxaa ka qayb qaadatay candhamaydla ma dhisin oo waaraad ma dhisin oo maarkid ma dhisin oo dhugdhugley ma dhisin oo dawladi ma dhisin waxaa dhistay oo 24 saac gudahood kaga soo jawaabtay iskarogooyinka Garowe oo ay xukumaan la yiraahdo magacooda la iskaashatada Dallis baa 24 saac kaga soo jawaabtay waxa nagaga banjaray intaasoo taayir waxa naga qayb baa candhada ku jabisay qayb baa ku duqaysay waxna loo qabtay ma jiraan naloo ka qabtay ma jiraan annagoo sidaas haddana saa ku okabaadsan oo dalkayaga iyo dadkayaga inaan u shaqeyno sidaa rabna waxa nala ku soo rogay wax aanan qaadi karin gaarigii waxa nala dabada waa in loo xiro uusan qaadi karin oo la saaray gaari leega wal dusha laga saaray waxa nala ku xukumay in nala saaro $2 oo calaalowra waxa nala ku xukumay $24 oo shaabada waxa nala ku xukumay $10 oo joogto ah waa waxaanan qaadi karin shatigii dawladda hoose aanu bixinay waa noo cashuuran yahay gaarigu wasaaraddii maaliyadda aanu bixinay waxaanan qaadi karin baa nala ku xukumay waxaana saaray waxa weeye waa nimanka dawladda hoose ama golaha deegaanka ha ahaato ha u dhammaadeen ama ha qaybsanaadeen waxaana saaray waa nimanka dawladda hoose waxaanu codsanaynaa oo ka codsanaynaa inta ay qusayso oo dawladda dhexe
baarlamaanka shacabka dhexe madaxweynaha isimada nabadoonnada in allaale intii ay qusayso waxaanu codsanaynaa in cabashadayada wax laga qabto oo nimankaa dawladda hoose waxa ay wadaan oo nagu wadaan nala ka qabto in wax laga qabto baanu ka codsanaynaa in allaale intii ay qusayso xadgudub aan caadi ahayn shalay baabuurta qayb baa la laayey qayb baa la xirxiray waxaanala ku calaamadshay qarax bay sidaaniin baabuurta qayb baa shalay la yidhaa qarax bay sidaan shalda xabad lala dhacaayey BS baa nala ku fasaxay saarsoon baa nala ku fasaxay ciidanka dawladda hoose nala ku fasaxay waxaanan u dulqaadan karin baa nala gacanta naloo geliyey waxaanu u cabanaynaa intii ay qusayso inay wax ka qabato assalaamu calaykum waraxmatullah horta xaaliya xaajaba allah inoo suubiyo baladha maanta allah ina ka xajaabo cirka madar khayr qaba allah ina ka siiyo abaaraha waddanka jira abaaraha allah ina ka saaro dhibaatooyin kaloo jira waxa weeye waa kufsi haddeer buntland ku soo batay waayaatan dambe wixii dhibtaa wada allah ina ka qabto wixii shar wada sharkooda allah ina dhaafiyo wixii khayr wada khayrkooda allah ina siiyo horta cabashada waa intaas ay sheegeen wey waxba ku dari maayo badan gaadiidku waxaan lagu soo rogay wuxuu qaadi karo iyo wuxuu tabar u leeyahay iyo wuxuu awood u leeyahay midna maaha waxay tahay waa sida odayaashu u sheegeen waana dhab waana xaqiiq waxay ka hadlayeen waxaanu ka hadlayno waana intaa ay noo sheegeen annagu waxaanu ka cabanaynaa arrintaa dawladda hoose sharci darrada ay nagula kacayso oo aynan sharciga noogu lahayn annagu wixii sharciga waafaqsan waanu ogol lahay cashuurta waanu ogol lahay tii dawladda hoose waa ogol lahay laakiin waxaan sharciga waafaqsanayn oo guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ay nagu soo rogeen mana ogolin kaloo halkan uga soo jeedinayaa odayaashu intay dheheen weeye hadalku intaasuu nagaga dhan yahay waxaa kaloo ku daraya waddooyinkii magaalooyinka aanu dhisi jirnay qaadan jirnay in loo keenay baabuur duqduqah iyo hay-ada la siiyey ayadana cabashadeedu aad baan wax weeye rabnaa in dawladdu wax ka qabato madaxweynuhu ugu horreeyo madaxweyne ku-xigeenku ku xigo guddoomiyaha degmada oo hawshaa nagu soo rogana aad baanu haddee behenmaayo uga cabanaynaa inuu hawshaana laka daayo waxaana qaadi karin weeye waxaana awoodi karin weeye gaadleytan ayaa sidoo kale sheegay in ay dalka ku soo kordhiyeen horumar baaxad leh ayna ka qayb qaateen arrimaha iskaa wax u qabso oo puntland qaybo ka mida laga sameeyey waxaa halkan cabashada ku muujinaya waa gaadiidleydii xamaalatada ahayd halkan waxa la isugu soo baxayna waa dhibaatada kaga timi xagga dawladda hoose iyo wasaaradda deegaanka waxay cabashadooda ku muujinayaan in waxa aysan qaadi karin ma aha canshuur diid ma aha rabsho ma aha dalbi'in ma aha dadbi'in waa waxa culayska ah oo aysan awoodda u lahayn waxaa jirta gaadiidka xamaalatada ah u shaqeeya magaalada iyaga iyo shaqaalahooda danyarta ah waxa ay ka shaqeeyaan waa wax aan madaysnayn waa wax hel ama waa ah waa wax bakhtiyaa nasiib ah xamaal ayaa loo yaqaanaa xamaalka cidda xamaalataa dhul ay xor u tahay ayay ka xamaalataa ma ay haysato iyagu ma haystaanin dhul ay xor u yihiin oo ay toos uga xamaashaanin waxa ay nagaga maqan tahay waa wasaaradda deegaanka wey ma aha canshuur diid waxaa nala ka qaadaa 3 bilood waxaa nala ka qaadaa 3 bilood waxaa nala ka qaadaa 3 bilood iyo canshuur sanada iswata ma aanu diidin waxaa nala ka qaadaa warqadda kale oo kalaawitada oo nimanka la yidhaahdo maaliyadda ma aanu diidin waxaa nala ka qaadaa furinta oo 15 tukaraq ma aanu diidin waxaa nala ka qaadaa ceel daahir ma aanu diidin waxaa hadda bilo ka hor nala ka qaadi jiray mindigar wax kasta oo dalka wax loogu qabanayo waxaanu nahay gaadiid ka qayb qaata waxaanu khilaaf iyo rabsho ka keenayna ma jirto waxaa keenay maanta koosgareeyey in halkan la isugu soo baxo cabashadaana lagu muujiyo waa waxa ka siyaadada oo ay tahay shati baabuurtu shati uma baahna stiigar bay leedahay kombyuutaraday ku xidhaysan tahay wasaarad gaadiid bay leedahay taarikay leedahay ma garanayno meesha ay nagaga timi maanta shatiga waxa la yidhaahdo oo dawladda hoose ay nagu keentay mid aanu garaysannahayna maaha lacagta la socota
oo gaadiidka qaybtii lagu soo rogay oo la yidhi bil walba waa joogto waa $25 midaannu awood u leennahay maaha waxaa kale oo jira gaadiidka wax aqoonta iyo dadka gaadiidka leh iyo magaalada waxaa lay dabadaha loo xidho haddii ay maqan tahay gaadiidka rar ku maqan yahay wax aqoonta iyo wasaaradda gaadiidka iyo injineerada iyo dadka hantiilayaasha baa nala arkay sidaynu ognahay gaadiidka waa la kordhiyaa markuu Soomaaliya 2 jeer tibaar baa dul saaran wixii dhib keenaya sida carakaawooyinka oo kale oo wadada dhagxan kaga dhacaan inkastay u badan tahay magaalada hareeraheeda in la dhigo waxyaalaha noocaas wixii waxyeello keenaya annaga raalli ku ah waxaan raalli ka ahayn kharashka aan qaadi karin waxaan codsanaynaa oo dhab iyo dhab soo jeedinaynaa lacag haddii aanu bixinayno intaa ka dibadda dadka dalka haysta baanu ogolahay ciidda waana la ka gada oo fadlan baanu ku bixinaa dhagaxa meeshaan ka soo qaadno fadlan baanu ku bixinaa buurta carrakaawada fadlan baanu ku bixinaa waa dhulkii laga rabay dawladda deegaanka waa dhulkii laga rabay dawladda hoose ma haysano haddaanu lacag koodhiya bixinayno dadkaanu siinaa baraha wax kale oo magaalada oo gaadiida mid goosha mid bi'ela mid meel ka shaqeeya waxay leeyihiin bara tilmaaman ma lihin annagu bara tilmaaman xagga dawladda hoose aanu uga jeednaa annaga rabsho ma wadno dhib ma wadno mucaarad ma wadno waxaanu ka cabanaynaa waxaanaan qaadi karin waxaanu codsanaynaa waxa naga maqan waxaa intaa ii raaca waxaanu odhan karraa xaquuq kuma lihin dalka qandaraas ma qaadanno wadda kama shaqayno wasaarad kama shaqayno ayroboor kama shaqayno wax mashruuca oo aanu qaadanno oo xagga dawladda hoose nooga yimaada oo xaquuqoo aanu leennahay ma jirto baanu leennahay haddii ay jirto oo aan inkirayno ciddana siisa ha caddayso ha sheegto cabdifataax cabdulaahi wararka TV-ga caalamiga STN magaalada Garowe ee xarunta Puntland.